عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قيمة مشكلة وحا كمدة قدوميها برلمان كدالك إيران محمد بغار غالباف أيا هنجبات إدقنين عد أدري مدحوينها دالك مرايكان كدونالد ترامب يقودها النظام كواشنطن وحير هدي آذن قبقبتن إدقدقت آذن جوجنين وحا وحيسي دونا وير مرايكان قيمها شدال كادو كيبسدو فافاهيني warbixin cajiib oo hadalka ku saabsan iyo waxa ka keenay Iran inay hadalka jeediso ayaanu dul istaagi doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay xiisada Mareykanka Iran Israa'iil iyo Lebanon iyo Xuutiga oo iyaguna war adag oo cad soo saaray dhanka kale qodobada sidoo kale maqli doonta waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha dalka Lebanon Nawaf Salam ayaa jeediyay khudbadii ugu yaabka badnayd ee hogaamiye u jeediyo waa uu cabanaya واو عبادية واو على عليا واو عطسانيا واو عتابيا شاكيا بلا يان كاغا دياري بل نينكا waxa ka yeerayo qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontayna waxa kamida Trump ayaa mar kale ku celiyay inuusan jeclayn in Iran ay wada hadalo inuusan kala jeclayn aan iraahday in Iran ay wada hadalada ku laabatay in kale waxa uu yiri Hormuz annaga gacanta ku haynayno ama ha hadlaan ama ha iska daayaan laakiin Hormuz uu gacanta ku hayo sheekaya ablaayada kaga haya dhanka kale waqooyiga Israa'iil ayaa lagu waramayaa wali inay cabsi weyn ka taagan tahay oo laga sii qaxaya Xisbullahna ay duqeyn adag ka wado media Iran waxa ay jeedisay digniintii ugu cuslayd tan intii laga soo noqday magaalada Islamabad halkaas oo uu ku burburay wada hadaladii Mareykanka iyo Iran uga socday ugu dambeyn markii ay wada hadaladii burbureen wufuudina ay kala noqdeen Mareykanka waxa uu bilaabay in uu qaado talaabooyin ay kamid tahay isku duburid iyo in uu sheego dalal badan in uu haysto in uu xirayo Hormuz in Iran cunaqabateen la saarayo in Iran la weerarayo in Iran uu burburin karayo hadalada adag markii ay soo yeereen waxa war culus soo saaray gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iran محمد بغار غالباف وهانينكي هوغاميني wada hadalada Islamabad waxa uu yiri Mareykanka hadii aysan joojinin talaabooyinka ay qaadayaan ee hadalada ka soo yeeraya waxa ay noqon doontaa buu yiri inay u xiisaan qiimaha hadda shidaalka Mareykanka lagu iibsado hadda waxa durbaba dadka Mareykanka ay ka cabanayaan qiimaha shidaalka laakiin ninkan waxa uu leeyahay intaasi wax macna ma lahan way ka shalayn doonaan oo waxay u xiisi doonaan hadda liitarka inta la gado oo macnaheedu ay tahay in Iran ay si buuxda u xiri doonto marinka Hormuz oo Mareykanka albaabo badan oo shidaalka uu ka soo galay laga xiri doono dalalka adduunkan ay dareemi doonaan Iran waxa jirtay hanjabaado badan oo ay jeedisay oo ay hirgelisay dunida maanta waxa uu cadaatay Irantii ilaa iyo sanadkii 1979kii ku dhaqmi jirtay siyaasad isgaabin isbabadal badan si degan ula dhaqanto reer galbeedka dagaal toos aan la gelin hadda inaysan kala jeclayn hadii Mareykanka uu 24 saac weerarayo hadii kale oo waxay u aragtaa burburkii gaari lahaa inuu gaaray madaxdeedii sare qaar badan in laga dilay Iran hadda waxay aaminsan tahay in iyadu ay mar walba ku jirto marxalad dagaal waxay sidoo kale xaqiiqsatay in qof kasta oo kamid ah siyaasiyiinta Iiraaniyiinta uu yahay mid ay beegsanayaan Israa'iil iyo Mareykanka waxaana ay dadweynaha Iran qaar badan oo kamid ah u cadaatay in Iran shidaalkeeda iyo badeeda loo socdo oo aanan sinaba lagu daynayn Israa'iilna waligeed inaysan aqbali doonin heshiis Iran lala galo sidaa darteed nidaamka Iiraaniyiinta ayaa aaminsan in la doonayo in gacanta lagu dhigo Iran marka waxay noqotay meel u diyaarsan dagaal waxaana Iran la sheegay inay waqti dheer isku diyaarisay inay dagaal dheer muddo dheer ku jiri karto taasoo Mareykanka ay suurtagal u ahayn inuu ku sii jiro si kastaba ha noqotee hadalka gudoomiyaha baarlamaanka ama fayeenka baarlamaanka Iran waxa uu ku soo aaday kadib markii madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuusan kala jeclayn hadii Hormuz la furo iyo hadii ay xirnaato waxa uu sheegay anaga ma kala jeclin in Hormuz ay Iran furto waayo waxa uu yiri waxaan haysanaa xulufo iyo koox dalal ah oo qayb ka noqonayso
in Iiraan aan xoog uga wareejino Hormuz. waxa uu yiri maalmaha soo socdana waxa arki doontaan isbedel weyn oo ka dhaca. laakiin Iiraan waxay leedahay haddii sidan arrintu ay ku socoto Mareykanka iyo cid walba oo garab ku siiso fawdada ay wadaan waa ay ka shalaynayaan. waxaa wararka ka imanaya bariga dhexe ay sheegayaan dalalka khaliijka hadda inay u ololeynayaan in la damiyo oo la dejiyo xiisadda u dhaxaysa Mareykanka, Israa'iil iyo Iiraan. Israa'iil iyo Mareykanka oo dhinaca Iiraan oo dhana iyo xulafada Iiraan oo soo socda in la dejiyo. waayo dalalka waxay aaminsan yihiin mar walba oo xiisaddan sii xumaato dhaqaalahooda inuu ku baabay iyagoo halis ay wajahayaan. Iiraanna waxay mar kale ku celisay tallaabo kasta oo uu qaado Mareykanka inaysan ku ekaan doonin Tehraan oo kaliya, laakiin Abu Dhabi, Doha, Riyadh, Kuwait dhammaan in la isla guban doono. Ammaan dhammaan dalalka khaliijka inay iyaguna dareemi doonaan. waayo waxa ay Iiraan ku gorgortamayso 10 qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa in Mareykanka saldhigyadiisa bariga dhexe uu qaato oo uu ka baxo. heshiis kastoo dhaco ma aaminayna badeen inta Mareykanka uu joogo bariga dhexe. Mareykankana saldhigyadan uu muddada dheer ku lahaa bariga dhexe ma qaadayo. laakiin Mareykanka ayaa la sheegay inuu diyaar u ahaa qayb ka mid ah in uu qaado ama uu ka raro saldhigyadiisa. lamana sheegin kuwa ay yihiin. marka waxa leeyahay in wada hadalladiiba ay soo dhawaadeen Mareykanka qayb ahaan inay sheegeen inay diyaar u ahaayeen inay ka qaadaan ciidamadooda bariga dhexe ayaa ahayd baa la leeyahay mid Iiraan guul u ahayd. laakiin Mareykanka waxay ku adkaysteen oo ay diideen inay aqbalaan in Iiraan ay haysato ballistic missiles uranium ka laga sameeyo nuclear labadaas inay baabi'iyaan. Iiraanna waxa ay sheegtay inaysan miiska saarayn wax gorgortan oo ku saabsan plastic missiles ka ganteelada ridada dheer leh inta Iiraan ay Israa'iil daris la tahay. Israa'iil baa noo dhow ballistic missiles ka joojinaysaan wax la aqbali kara maahan. waayo saaxiibada qiimiga leh qodobka xiga barnaamijka waxaan qodobkan ku eegi doonaa ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Nawaaf Salaam ayaa waxa uu jeediyay khudbad hogaamiye uu jeediyo mid ka mid ah tii ugu jilicsanayd ugu liidatay. waxay ahayd khudbo ka kooban calaacal, baryootan iyo niyajab. waxa uu leeyahay annagu ma rabna dagaal, waxaan rabnaa nabad. Israa'iil ma rabna inaan la dagaalno, ma rabna inaan dagaal galno. nabadda waxaan u rabnaa ama dagaalka naloogu qasbay oo dagaal naloo geliyey annaga aan rabin. nabad ayaan rabnaa buu leeyahay sida hooyo ilmaheeda uu ka dhumay oo iyada aan rabin caruurteeda inay ka dhumaan. nabadda sidaas ayaa nalooga dhumiyay ayuu leeyahay. waxaan rabnaa codsanaynaa nabad iyo xabad joojin in wada hadallo la galo. Israa'iilna waxa ay sheegtay inaysan wax wada hadal ah galaynin intay Xisbullah Lubnaan ka joogto. macnaha Xisbullah Lubnaan kama wada talisxataa qaybay ka joogtaa. Israa'iil waxay leedahay Xisbullahna waa cidda kaliya ee la dagaalanta hadda. weliba la soco dadka uu nabadda ka barayay gudaha Lubnaan bay qayb dhan ka soo galeenba. buundooyinkii ugu muhiimsanaan ay ka jajabiyeen. deegaanadii Lubnaan koonfurteeda qaybo dhan ay burburiyeen. markaasuu hadda waxa uu baryayaa nabad. bal ila daawo hogaamiyaha dalka Lubnaan نواف سلام. أشعر بوجع الأم التي فقدت ابنها المقاتل على الجبهة، كما أشعر بوجع الأم التي فقدت طفلا لم يختر هذه الحرب ولم يطلب سوى أن يعيش. أعلم أنكم جميعا تتألمون أكثر مما يحتمل، ومنذ زمن طويل فإننا مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدمتها المبادرة التي قدمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين جميعا. وأدعوكم جميعا إلى التمسك بما يجمعنا حماية لوطننا ولمستقبل أبنائنا، فلنواجه معا الأخضار المحتقة بنا بالعقل والوحدة. kaasi waxa uu hogaamiyaha dalka Lubnaan Nawaaf Salaam. waxa uu la hadlayay dadweynaha reer Lubnaan. waxa uu sheegay in uu geed dheer iyo geed gaaban u fuuli doono sidii nabad loo heli lahaa. waxa uu yiri dagaalkan waan soo afjari doonaa, annaga ma lihin, annaga ma dooranin, waana lagu qasbay buu leeyahay.
waan dareemi karaa buu yidhi mid kastoo idinka mid ah dagaalkan inuu saameeyey caruurteen inaan badbaadino ayaa mas-uuliyad naga saaran tahay waxa uu dadka reer Lubnaan ugu baaqay midnimo laakiin waxa cajiiba dadka reer Lubnaan in midnimadoodii awoodoodii duulaan lagu yahay oo dagaal uu ka socdo Israa'iilna waxa ay ku gorgortamaysaa inay tahay Xisbullah oo hub ka dhigto iyaduna ay sheegayso inay qabsanayso Lubnaan waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka markaynu meesha uga gudubno iyo xaaladda cakiran ee dadka reer Lubnaan haysato iyo hogaamiyaasha liita ee ka taliya dalalka bariga dhexe gaar ahaan dunida Carabta Trump ayaa waxa uu ku celcelinayaa hanjabaad waa inuu Iran talaabo ka qaadayo inuu Iran weerarayo in Iran uu dhulka la goynayo in Iran la weynayo in Hormuz uu kala wareegayo laakiin waxa soo baxaya warar cabsi leh oo dunida oo dhan saameynayso xitaa Soomaaliya saameynayso bariga Afrika saameynayso bartamaha Afrika saameynayso Aasiya Europe America dhammaan saameynayso taasoo ah Hormuz oo xiran haddii baabu mandab ay xuutiga xiraan taasoo sheegeen xuutiyiintu inay xirayaan xuutiga dagaalkan way ku jiraan waxayna sheegeen inay garab taagan yihiin walaalahood reer Iran iyo reer Lubnaan iyo reer Gaza xuutiga waxa ay sheegeen in talaabada xigta ay qaadi doonaan ay tahay inay xiraan baabu mandab oo gabi ahaanba ay ka hor istaagi doonaan maraakiibta isticmaasho Maraykanka Israa'iil iyo xulafadooda intaasoo kaliya kuma ekaan doono haddii dagaalka xuutiga la weeraro oo xiisadu ay sii adkaato xuutiyiintu waxa ay samayn doonaan inay xiraan baabu mandab oo dhan taasoo cabsida ugu weyn dunida maanta ay xuutiyiinta intii uu socday dagaalka lagu qaaday Iran waxay maalmihii u dambeeyay u soo hiliyeen Iiraaniyiinta ayagoo duqaymo isxigo ku dhuftay gudaha Israa'iil sidoo kalena sheegay haddii Israa'iil dagaalkan joojinin xiisadan ay sii socoto in ay qaadi doonaan tallaabo ay ka mid tahay in dal kasta uu hiiliyo Israa'iil inay garaaci doonaan bariga dhexe dalalka ku yaala Maraykanka haddii uu dagaalka sii wado inay beegsan doonaan saldhigyadiisa bariga dhexe maraakiibtiisa badda cas ku sugan intaasoo kaliya maahane baabu mandab oo dhan in la xiri doono taasoo dunida cabsi weyn gelisay waayahay saaxiibada qiimiga loo intaynu barnaamijka ka bixin dagaalkan furimo badan buu ka socdaa oo Israa'iil furimo badan bay ku jirtaa waxaa ka mid ah furimada ay ku jirto dhinaca iyo Xisbullah ayaa waxaa lagu waramayaa in xalay ay duqayn halisa ku dhufatay waqooyiga Israa'iil taasoo mar kale muujinayso in xiisada bariga dhexe aysan dhamaanin dagaalkana uusan wali hakanin oo uu yahay faanoole farikama qodno dagaalkan ayaa hadda laga baqayaa inuu sii socdo dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka sida ay sheegtay Fox News dalabkii ugu dambeeyay ee JD Vance uu gudbiyay wafdigii Iran ee Islamabad ka hor burburkii wadahadallada nabadda wuxuu ka koobnaa shuruudaha soo socota sida ay ku waramayso warbaahinta Fox News in la joojiyo dhammaan howlaha hodminta uraniumka ama diyaarinta uraniumka laga sameeyo nuclearka 2 in la burburiyo dhammaan xarumaha waaweyn ee lagu hormariyo uraniumka Iran 3 in dib loo soo celiyo uraniumka heerkiisu sareeyo highly enriched uraniumka in Iran laga soo celiyo macnaha 2 in la aqbalo qaab ballaaran oo nabad ah amni iyo dejin xiisadeed oo ay ku jiraan xulafada gobolka in kaliya heshiisku isugu ekaan Iran laakiin Iran